mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ahna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ayaa kormeer ugu koorgelayo hanaanka howlshaqo ee hay-adaha dowladdu ay qaranka mas-uulka uga yihiin ku tegey qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda ee adeegyada muhiimka ah u qabta bulshada reer somalilan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ayaa booqday xarunta guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan isagoo indha-indheeyey sida hawsha shaqo ay uga socoto wasaaraddaas agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka abiib aadan nuur ayaa ka xog warramay dadaalada wasaaradda caafimaadka ku xakamaysay cudurrada faafa ee shubanbiyoodka uu ka midka yahay wasiirka caafimaadka somalilan dr salebaan ciise axmed xagle toosiye ayaa tafaasiil ka bixiyey sida shaqada qaran ay uga socoto wasaaraddiisa aad baan ugu faraxsannahay kormeerkaagan shaqooyinkastuu kadis nagu yahay oo aanaan filaynin aad iyo aad baan madaxweyne kuu soo dhaweynaynaa waxaa jira warar badan oo beena oo meelaha lala wareegayo oranaya wasiiradii way maqan yihiin oo ma shaqaynayaan wasaaradii way xidhan yihiin marka aad baan ugu faraxsannahay inaad noo timaadido aad ogaatid in wararka meelaha lala wareegaya ay been tahay tiro 280 baa ka shaqeeya lix waaxood weeye wasaaraddu cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ayaa u mahadnaqay bahda wasaaradda caafimaadka ilaahay baan horta ugu mahadnaqaynaa ilaahay naga soo gaabiyey shubanka runtii oo walwal badan inagu hayay runtiina waa aad baan idinku hambalyaynaa kaambeenka adag iyo dadaalka weynaad ku qaadeen sidii loola tacaali lahaa maartay shubankaas siduu yaraan lahaa maantana waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa in maanta aad iyo aad hoos u dhac badan ku yimiday oo maad kaysaska aad u yaraanayaan taana waxa weyn waxa ku timiday dadaalka wasaaradda iyo shaqaalaheeda ilaa maanta madax ilaa mijo lagu wada dadaalay runtiin annaguna runtii aan ka qayb ahayn xukuumadda wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta somalilan waxay ka mid ahayd xarumaha dowladda ee madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan uu kormeerka kallahadda ah ku tegey agaasimaha guud ee wasaaradda boostaha iyo isgaarsiinta faysal cali sheekh iyo wasiirka boosta iyo isgaarsiinta somalilan mustafa faarax abraar ayaa ka xog warramay sida shaqadu ay wasaaradoodan uga socoto iyo qaybaha ay wasaaraddani ka kooban tahay wasaaraddan waxay muhiim u tahay qaranka somalilan waxaa ka mid tahay wasaaradaha dakhliga dowladda u soo hooya waxa aad imiga doonayna inaan kicino madaxweyne qaybtii boosaha waxaa jira shirkado yaryar oo boosaha iyo gobollada dadka u gudbiya shirkadahaas waxaanu la ballansannahay haddii ilaahay yidhaaho hadda waxaan hubinaynaa sharciyadda ay haystaan wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta runtii waxay ka mid tahay wasaaradaha qadiimka ah ee dalka waxay waqtigii hore ahaan jirtay heer gobol waana halkii ay boostu ka furnaan jirtay waqtigii ingiriiska ilaa 1944 shaqaalaha jooga waa ilaa 228 qof baa jooga wasaaradda waxa kaloon qabanaa wixii problemisa ee conflict ka dhaca muxuu ahaa shirkadaha cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ayaa iftiimiyey in ujeeddada socdaalkiisu ay ahayd mid la xidhiidha dardargelinta howlaha shaqo ee qaranka ay hay-adahani u hayaan waxaan ku faraxsanahay runtii in kormeerka asaaka inagu yimid inaad wasaaradda ay madaxdeedu ay wada dhanyihiin waxaan ujeeddada socdaalkuna waxa weeyaan in dardargelino uun howlaha aynu ummadda qaranka u hayno xil bayna wasaaran dhammaanteen xilkayna saarna waxa weeyaan in ummadda aynu u adeegno sida ugu habboon ama hufan ugu adeegno ilaa maalinta doorashadaas ilaa maanta ninka la gaarsiiyo in shaqadeenu aynu wax isbedela in keenino walba halkiisa shaqada u ka hayo oo labada howlada isku wadno sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ayuu booqday madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo xubno ka mida golaha wasiiradu ay la socdaan agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan cabdigurey ayaa sharaxaad ka bixiyey sida ay heeganka ugu yihiin u adeegidda bulshada somalilan sagaalkaanu fadhiisanaa halkan oo warbixinta gobolladoo dhan la kala qaataa gabagabuu ku dhow yahay guud ahaan gobolka dalkoo dhan daaweyntii xoolaha socota waana barnaamijkii lagaga soo kabanayay abaarta gacan weyn waxaa inaga siinayaa hay-adda faw oo nagala shaqaynaysay xagga daawooyinka iyo kharashaadka tiimamka 45 guud ahaan subaxii waxaa wixii cabasho ah ee gobollada ka yimaada meelahaas xoolo bukiya laga soo sheego marka waanu dhaanaa tiimkaasaa idinku dhowo aanu
guud ahaan wasaaradda hawsheedu waa sidaas. mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa hadallo kooban ka jeediyey xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland. labada gacmood baan ku shaqeynaa dal ka dhow diyaargarowga doorashada iyo shaqadeena awal baan hayno qaranka ummadaan u haynay labadaba isbarbar wada loo baahan yahay oo la isdhigalin saacadaha shaqadana aad loo ilaaliyo runtiina waa ogahay waan ku faraxsanahay hawlaha baa wasaaraddu haysaa waa xoolo laf dhabartii dhaqaalaha Somaliland oo xoolihii aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda iyo hay'adda FAO mar walba naga caawisa. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland wuu sii watay kormeerkiisan wuxuuna ku tagay wasaaradda beeraha Somaliland iyadoo shaqadu ay halka ka socoto. wasiirka beeraha Somaliland Maxamed Awdaahir Ibrahim ayaa u waramay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland. waxaanu nahay wasaarad magaalada aan aad uga dhex muuqan laakiin halkii loo baahnaa aad uga muuqata ayaanu nahay taasoo ah goobaha researchka iyo goobaha tala bixinta ee beeralayda. dhinaca kale 2 sanadood oo isxigay roob yari ayaa jirtay sanadkanna haddaan ilaahay inoo cafin bilaha soo socda roobku heerkii caadigii wuu ka hooseeyaa qaabkii aynu abaartii kaga baxayn waa in falowgeedaynu qabanaa dad inaga roob yar ayaa isku filaada. mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa tilmaamay waxay looga baahan yahay inaan saacadaha shaqada iyo inuu ilaalino iyadoo waqtiga kulli ku jirin kala guura aad baan ugu mahadnaqayaa runtii inaad shaqaalihii adiga iyo agaasimaha guud shaqaalaha Istanbul ku tiina waqtiga loo baahnaa shaqeynaysan laga tagayaa macnaheedu ku dardaarayaan inaan ummadda si adeeg hufan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland waxa uu kormeerkiisa ku soo gabagabeeyay xarunta wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Somaliland kadib markii uu kormeer ku tagay. wasiirka ganacsiga Somaliland Dr. Umar Shacay Maxamed ayaa goobta ka hadlay. wasaaradda ganacsiga waa wasaaradaha ugu balbalaaran ee uu leeyahay qarankeenani. saad aragto wasaaraddu waxa weeyaan waxay ka kooban tahay 5 waaxood. anigoo aad iyo aad ugu mahadnaqaya madaxweynaha oo doorkii wadana loogu daray in lagu daro maxay tahay investment lacagtii budgetka waxa lagu daray in laga dhiso gobolada xafiisyo. wasaaradda shaqadeedu waxa weeyaan wax soo saar. wasaaradda dakhliga wadanka soo saartay ayaan ka mid nahay liisamada iyo wax laalo wixii maxay tahay dakhli oo dhan wasaaradda soo saarta waana ognay kulliba shaqada iyo maxay tahay iyo qaranka in loo shaqeeyo inay important tahay. mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ahna kusimaha madaxweynaha ayaa yidhi ujeedada socdaalku wax kale ma hayna waa inaynu dardar gelina hawlaha shaqada oo waqtiga aan ku jirno darteed aan la isdhiganin baan maartay maanta hawsheena ay tahay adeegan dadka u hayna runtii aad iyo aad loo ilaaliyo saacadaha shaqadana la ilaaliyo.